fariin ayaan dirayaa. Fariintan waxaan u dirayaa duwaag kasta oo ku jira social media. Duwaagaas oo doonayo in hablaha Soomaaliyeed uu ku helayay magac mise maal mise doonaya inuu ku soo caanbaxa baadilka gabdhaha Soomaaliyeed. War miyaadan ogeyn in hablaha ay yihiin laf-dhabarta bulsho kasta? Hablaha ayaga ayaa soo saara madaxweynaha, maalqabeynka iyo qof walbo oo bulshada waxtar u leh. May damiirkaadii war haddii aad ku xurmayn weydeen ood ku ixtiraami weydeen inay yihiin walaalihiin, eedooyinkiin, habaryaashiin, hablihiini, xaasaskiini, war ma ku ixtiraami weydeen inay yihiin hooyooyinkiin? mise waxaadna fahansaneenba hooyada iyo qiimaha ay leedahay? war damiirka xagooyinka aaday. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ha kahonina hablaha. Hablaha waxaa karaameeya qof damiir leh oo damiirkiisa nool yahay. waxaad ogaataa hablaha aad qalbiga ka jebinaysaan, hablaha aad ku dheelaysaan, hablaha aad bahdilaysaan, in guryihiina iyo familkiina saasoo kale lagu samayn doono. haddaba qof walbow damiirkaada ka shaqaysay, waxaadna garataa hablaha iyo qiimaha ay leeyihiin. habluhu waa ammaana, loomana abuurin in la bahdilaayay. almar'atu amaana maa khuliqat lilihaana.